soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya ciidamada beesha ciise ayaa soo bandhigay hub aad u fara badan iyagoona ay ka heleen dowladda Jabuuti haddaba hubkan sidee ayaase lagu soo geliyey gudaha beesha ciise haddaba aan ku hayaa faahfaahinta xogtaasi sidoo kale qodobada kale xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya ugaaska guud ee beesha Samaroon ayaa magaalada Boorame waxa uu ka wadaa qorista askar cusub oo la doonayo in laga horgeeyo ciidamada geesiyaasha ee madaniga ee beesha ciise maxaa ka soconaya Boorame ciidamadan halkee ayaa loo diyaarinaya iyana faahfaahinta xogtaas ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan galabnimadan waxaa ka mid ah ciidamo waa markaasi aan raadi gaadiid dagaal oo lagu arkayo gudaha magaalada Zaylac ciidamo markaasi Jabuutiyaan oo halkaasi ku sugan haddaba maxay tahay dhaqdhaqaaqyada xooggan ee laga dareemayo gudaha Zaylac ayaan saaxiibayaal sidoo kale halkan idin kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aan idin qarinaya aad saaxiibayaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada aniga waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalka Macaash Media haddii ay taamar kugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag maasani daawade hagaag aynu ku bilowno beesha ciise ayaa soo bandhigay hub aad u fara badan oo ay markaasi ay ka heleen dowladda Jabuuti oo garab iyo gaashaan markan ka helaya ciidamada kuwa geesiyaasha beesha ciise ayaana hub fara badan iyo waliba saanad military ay ku soo bandhigeen meelo ka mid ah awdal iyo waliba sidoo kale Salil marka loo fiiriyo dhowrkii maalmood u dambeeyay waxaa dagaal xooggan u dhaxeeyay ciidamada geesiyaasha beesha ciise iyo maleeshiyada beesha Samaroon oo dhowrkii bilood u dambeeyay halkaasi ku wada dagaalamayay ciidamada geesiyaasha beesha ciise ayaa markan waxa ay garab iyo gargaarba ay ka helayaan dowladda Jabuuti oo iyaga hadda garab weyn siinaysa tan iyo markii dagaalkan la bilaabay dhawaan ayay ahayd markii dowladda Jabuuti ay sheegtay haddii aysan ka waantoowin maamulka Somaliland fargelinta ay ku hayso beesha ciise ee dagaal adag ay kula jirto maleeshiyada beesha Samaroon ayay sheegeen in ay iyagana garab xooggan ay siin karaan balse tii ayaana dhacday hub aad u fara badan ayaa dowladda Jabuuti waxa ugu deeqday ciidamada geesiyaasha ee madaniga kuwaas oo hadda ku naawilaya hubkaasi aadka u tiro badanna ay u soo bandhigeen saxaafadda qoryaha nooca darandooriga u dhaca ee dabajeexa iyo waliba sidoo kale qoriga AK47 garneelada garabka laga rido sabano bambaanooyin iyo gaadiid dagaal oo saaran qorigan loo yaqaano dhashiikaha ayaana markaasi ay halkaasi ku soo bandhigeen hubkan tirada badan ayaana qayb waxa markaasi la filayaa inuu ka noqdo howlgallada markaasi ay wadaan beesha ciise ay ka wadaan maamulka Guban State ay uga hortagaan maleeshiyada beesha Samaroon iyo dhankooda waxa ay wadaan diyaar garow adag kuwaas oo ay doonayaan inay kagala hortagaan beesha ciise waxa ay markaasi ujeedadeedu ugu weyn ay tahay in dhulka ay ula baxday maamulka Guban State ay gebi ahaanba ay ka neefadayso ay ka nadaafiso beesha Samaroon iyo ciidamada maamulka Somaliland sidoo kale in la hirgeliyo buuga heer ciise ayaa muhiimad ugu weyn ay tahay balse maleeshiyada Samaroon ayaa dhowrkii maalmood u dambeeyay waxa ayna dhankooda ay wadeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay doonayeen in ay iyagana qayb ay ka qaataan dagaalka adag ay kula jiraan ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise oo iyagana markaasi dadaal laba jibaaran ay sameynayaan hubkan ayaana naqanaya kii ugu cuslaa ee la soo gaarsiiyo ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise waxayse hadda naqanaysaa in xaaladdu marba marka kasii dambayso isbedesho oo hadda ciidamada geesiyaasha beesha ciise ay markan helayaan hub dhammaystiran oo ay kala hortagi karaan cid kastoo isku daydo ama in cid kastoo isku daysa in ay beesha ciise ay si duulaan cada ay uga soo qaado dhanka kalena daawadayaal haddii aan fiirinana ugaaska guud ee beesha Samaroon ayaa markan bilaabay magaalada Boorame inuu ka qoro askar si loogu hortago weerarada kala duwan ee ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise ugaaska guud ee beesha Samaroon ayaa dhowrkii maalmood ama maalmo ka hor waxa uu ka yimid gudaha Hargeysa isagoo soo gaaray magaalada Boorame askar ayuuna halkaasi durbaba ka bilaabay qoristiisa iyadoona ay wadaan dhalinyaro badan isdiiwaan geliyeen oo doonayaan inay u dagaalamaan maleeshiyada beesha Samaroon ugaaska guud ayaa markan wada
kacdoon bulsho isagoona dhalinyarada ku boorinayo inay ka qayb qaataan dagaalka adag ay ku jiraan oo ay doonayaan in garab loo noqdo dhawaan ayay ahayd markii askar tiro badan oo ay soo tababareen ay geeyeen furimaha hore dagaalka loogu laayay maleeshiyada Samaroon haddase waxay mar kale doonayaan in ciidamo kale hor leh ay soo dhisaan kuwaas oo xaabada ay ku soo shadayaan oo ay ciidamada geesiyaasha madaniga ay ka hor keenayaan dhowrkii maalmood u dambeeyay xaaladda magaalooyinka waaweyn ayaana markaasi ka jirtay xaalad maaragtay cabsi ah walow dagaal adag ay kula jiraan maleeshiyada beesha Samaroon dhowrkii maalmood u dambeeyay haddase xaaladdu waxay u muuqataa mid cabsi badan si abuurayso maadaama askar badan oo ugaaska uu markaas soo tababarayo taas oo ay noqon doonto in faanol fara ka maqan oo dagaalkan uu sii noqon doono garab ayay ka helayaan ciidamada maamulka Somaliland halka Jabuuti ay markan garab dadban ay markan u muujinayaan ciidamada geesiyaasha beesha ciise haddii ay sidaan wax ku sii socdaalaan xaaladdu way sii adkaan doontaa waa markaasi adkaan doontaa in dagaalkan u dhaxeeyo ciidamada geesiyaasha madaniga ee beesha ciise iyo Samaroon iyo maamulka Somaliland oo isku dhinaca way adkaan doontaa in la joojiyo waase haddii aan waan iyo maartay wadiiqo dhaba aan loo wajihin balse waan arki doonaa saaxiibayaal dagaalkaasi waliba sidoo kale maleeshiyada iyo geesiyaasha madanigaba halka ay ku dambeyn doono balse ciise waxa ay sheegeen ilaa ay midkood nool yihiin inay dagaalami doonaan cidna aysan u abiyeeli doonin kadib markii la isku dayay in la gaado oo dabin qarsoon ama maartay daban ay u dhigaan maamulka Somaliland qodobkeena ugu dambeeyana daawadayaal haddii aan waqti xaadirkan aan fiiriyana gaadiid dagaal ayaa hadda markaasi lagu arkayaa gudaha magaalada Zaylac ciidamo markaasi Jabuutiyana ayaa halkaasi ku sugan dhawaan ayay ahayd markii halkaasi lagu wada dagaalamay ciidamo Jabuutiyana ayaana gebi ahaanba gacan ku heynta magaalada Zaylac ay iyagoo hadda gacanta ku hayaan kuwaasoo sugaya amniga iyo dadka shacbiga halkaasi ku nool dadweynaha ayaa si aad u soo dhaweeyay ciidamada kuwaas oo guush weyn ay ka gaareen maleeshiyada gabaadka iyo waliba sidoo kale duulaanada iyo waliba dadka si shacaba ay dadku ugu dirqinayeen haddase magaalada amnigeedu waa uu degan yahay ciidamada geesiyaasha ee madaniga ayaana ku sugan iyo waliba sidoo kale kuwa Jabuuti dawladda Jabuuti waxa ay hore u sheegeen in ay garab xoogan ay siin doonaan haddii aysan ka waantoobin maamulka Somaliland garab siinta ay ka wado ciidamada markaasi beesha Samaroon dhawaan ayay ahayd markii dagaal adag ay la galeen ciidamada maleeshiyada beesha Samaroon kuwa geesiyaasha ayaa halkaasi 10 looga dhigay askarna halkaasi loogu qabtay kuwana qaar iyagoo nool waa maartay iyagoo nool ayaa gacanta lagu dhigay qaarkoodna maxaabiis ahaan ayaa loo soo bandhigay kuwana nafta ayaa ku sii dambeysay oo nafta ayaa ka sii baxday balse kuwa markaasi naqdeen kuwa maartay maskaxdooda iyo waalida dhaqanta ay naqdeen geesiyaasha beesha ciise waxa ay garawsadeen in reerahoodii iyo waliba sidoo kale dadkoodii la markaasi mataaneeyo oo ay guryahooda dib ugu laabtaan xaaladda gobolka Awdal iyo Zaylac ayaa dhowrkii bilood u dambeeyay waxay iska ahayd xaalad dagaal walow Samaroonku ay rabeen maamulka Somaliland inay ku soo dawgambadaan maamulka Somaliland markii arinkan uu soo galay uu rabay in labadan beelood la kala qaado waxa uu sheegay in labadooda hubka ay dhigaan balse isu waxa ay sheegeen in nabadda mar walba ay daaqdo maartay nabaddu ay dadku deeqdo nabadna naas la nuugane waxa ay sameeyeen qoray markay dhigteen waxa la isku dayay ciidamada maamulka Somaliland ayaa si toos ah u abaaray beesha ciisuhu iyagoo halkaasi ay isku dayeen in ay wax ay dilaan iyo waxay qabtaan ka dhigaan balse laakiin ciisuhu uu ku fahmay ugaaska guud ee beesha ciisana amar ayuu bixiyay waxaana uu sheegay in aanay waxaas la dhigeysan oo ay dagaal diyaar u noqdaan oo ay la dagaalamaan cid kasto oo ay isku daydo inay awood ku maquuniso ama cid kasto isku daydo inay la soo xigsato beesha Samaroon taas ayaana go'aanka ahaa ugu dambeynna waa ay dagaalameen daawadayaal haddii aad halkan nala soo gaartay runtii waxaa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo subscribe garaysid muuqaalkan la garay siina share garay oo saaxiibadaada la wadaag haddii aad halkan nala soo gaartay waxaa tahay qof qalbi wanaagsan dhammaantiin waxaan kaga codsanayaa inaad muuqaalkan la gareegtaan si meelo fog u gaaro waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan mahadsanidin